waayahay maama xaliimo yaray ayaa dabcan hadda soo baxday oo dabcan khudbaddii ra'iisul wasaaraha markii uu soo istaagay ka soo tagtay oo aan dhageysan arrintaas maxay ku dhacday bismillaahir rahmaanir rahiim horta arrintaas waxa iigu horeyso waxaan rabaa ilaahay inaan u mahad celiyo waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dowladda galmudug oo horeeyay madaxweyne qoorqoor oo suuro geliyay inuu shirkaan dhaco maanta Dhuusamareeb meeshaan gaarsiiyay galmudug meeshaan gaarsiiyay sidoo kale waxaan aad ugu mahad celinayaa madaaliyaasha heritage oo maalin kasta muddo 9 sano dadka soo isugu keenaysa madal ay uga wada hadlaan danahooda Soomaaliyeed intaas kadib waa run waa ka soo baxay muxuu ahaa shirki markuu prime minister ka soo istaagay damiirkayga wuxuu siin waayay qof isagoo madax ah anigoo dawladda u wada shaqeynayno muxuu ahaa afkiisa ku balaariyay oo naftayda halis geliyay oo yiri madaxan kugu dhufanaa hadaa kismaayo timaadid qofka saas yiri inaan u fariisto oo aan dhageysto oo aan u riyaaqo oo u sacbiyo damiirkayga ima siinayo ma ahan Stockholm syndrome ma aha aniga waxaan ahay gabar Soomaaliyeed haween Soomaaliyaan u shaqeeyaa danaha Soomaaliyaan u shaqeeyaa nin ku kalsoon oo iskula weyn oo ra'iisul wasaare ku ah inuu gabar yiraahdo